السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دمان أمد الصومالية وإذن سلامي والباد جوكتان وأنيقو عين محمد أحمد أن الحمد لله وأنا عافمات قواسيد وجيدان waxaan rabaa inaan idin cadeeyo qoraalkan hoos kusoo qoraya aniga inaan leeyahay sababtan qoraalka usoo qorana waxay tahay inaan isku fiicneen inaan wax badan ka hadlo ama aan sheego soo sidaa darteed videogan waxaan usoo duubay sidoo kale videogan waxaan usoo duubayaa inay jirto ciwaano badan oo fake ah oo laga sameystay soo kuwaas oo wixii rabo laga sheegayo soo xaqiiqda jirto waxaan kusoo qoray qoraalka anoo isku fiicneen inaan si fiican u hadlo sidaa darteed waxaan rabaa xaqiiqda saxda inuu hoos idinku soo qoro dama Soomaaliya inta badan oo taageertane oo ku maasantiin aad u maasantiin sidaa sharteen Allah idin sharfro waan idin salaama Ayuuni Qurux Instagram-keedu waxay ku soo qortay ayadoo ku bilaabaysa assalaamu calaykum ugu horeen Ilaahay ayaa mahad leh oo ah cida kaliya ee mudan mahadnaq xilliga farxadda iyo midda murugadaba sidoo kale waxaan rabaa in aan u mahad celiyo cid walba oo i garab istaagtay qoraalkaani waxa aan idinku soo qoray in aan runta idin cadeeyo video aniga igu saabsan ee meelaha la wareejinayay horta aniga waxaan ahay ani iyo Ilaahay ayaa is og oo cid maanta aragtidiisa waxba igama bedelayso laakiin videogaasi wuxuu ahaa sanad iyo bar ka hor waxaa jiray wiil aan wada soconay oo aan mooday qof rag ah oo qiimo leh laakiin alle ayaa og cid walba waxa ay tahay iyo waxa u qarsan markii aan muddo wada soconay waxaan go'aansaday in aan ka haro kadib muddo ayuu idaba socday oo uu raadinayay in xiriirka soo celiyo markii uu iga qoorsaday kadib ayaa maalin maalmaha ka mid ah ii soo diray videogan wuxuuna isku dayay in uu si qasab ah xiriirkeena u soo celiyo anna waxaan ka fakaray in aan wadadaas xun si qaado anigoo ka baqaya videogaas in uu faafiyo iyo in aan aqabadan wajaho oo aan ku raahdo waxaad doonto samee waayo qofka maalin ayuu dhashaa maalin wuu dhintaa in aan anigoo dambi qarinaya aan dhinto waxa iga sharaf badan in aan dhinto anigoo waxba ii qarsaneen kadib wuxuu ugu dambeyn Ayuuni Qurux Instagram-keeda waxay ku soo qortay walaalayaal waxaa jira warar been abuur oo dad magacayga ku qortay iyo kuwa kaleba ay isdhaxwadaan kuwaas oo dad aanan dambi lahayn sawiradooda meelaha soo dhigaya oo balse waxaan rabaa inaan idin cadeeyo wararkaasi waa been abuur oo ma jecli in qof beri ka ah been laga faafiyo sidaa darteeda arintaas qusaysa falcalinta iyo waxa aan ka yeeli lahaa qofka waxaas igu sameeyay waxaan rabaa inaan uga dambeeyo familkayga sidaa darteeda waxaasi xushmad iyo qadarin leh idinkaga codsanaya in arintaas aad joojisaan ka hadalkeeda oo aan u madax baneeyo qoyskayga mahadsanidin dhamaanteena waxaan sharaf inoo ah in aan garab istaagno walaashayna Ayuuni Qurux nacala sheedan ku yaal